السلام عليكم صاحب يال سو دوادا دمان ساودا دنتين وسو دوادا يوتيوب كينا ولا الله ميديا دمان كينا واد كما سنتين دابشada muuqaalkayga daawanaysid waanigo haan deegaashaan u idin leh mar kale isku soo noqod wanaagsan oo waliba xiiso leh in hadaba aan ugu dagalna qodobkeena maanta title-ka ku soo aragtay title-keena wuxuu yahay qaababka hurdada iyo shakhsiyaadka uu ka turjuma daawaday qof walba si ayuu u seexdaa sad thumbnail-ka muuqaalka ku soo aragtay qof ayaa dhabar u seexda xabad qofni lug ayuu taagaa lugna ayuu laabaa qofni labada lugood waa uu soo laabaa qofni labada lugood wuu taagaa qofni xabad ayuu gabi ahaanba u seexdaa dhammaan inta ku soo sheegay in ka badan laga yaaba inaad video-gan ku arki doonto daawaday balse wardanyani ku dalinin aan qodobkeena hore uu sii gudagalno daawaday qofka inta uu dhinac u seexdo labadiisa gacmane soo quluciya oo seexashadii qaabkani waxa ay aad iyo aad ugu fiican tahay daawaday dhabarkaaga qoortaada iyo wixii la mid ah oo jirkaaga hay'e dadka qaabkani u seexda waxa aad iyo aad loogu macnayaa inay yihiin dad aad iyo aad u xishood badan daawaday dabeecad ahaan markaan ka fiirino waa dad aad iyo aad u fiican waana dadka aniga ahaanteedaan isdhihi karaan ugu jeclahay waa dad isku kalsoon gabi ahaanba nafsadooda aad iyo aad ugu kalsoon daawaday balse waa dad gabi ahaanba ka shakiyo qofka ku cusub dad waxaa jira silooyinkooda waxyaabaha privacy-ga ee hore ugu soo bandhigo qofkani waa qof aad iyo aad taxadar iyo tigtoon ugu jiro qofka ku cusub gabi ahaanba qofka ku cusub qofkani ma ahan qof iskaaga degdego waxyaabaha privacy-ga ee u sheegta ma ahan waa qof by step qofka uu dhaxgalo kadibna markuu ogaado qofka minus iyo plus wuxuu yahay kadib uu u gudagalo qofkani qaabka uu la dhaqmay minus qaabka uu la dhaqmi lahaay ayaan ula jeedaa daawaday hay'e dadka qaabkani hadda aan ka soo hadalnay u seexda waxa ay qaataan go'aan aad iyo aad u fiican weyn isdejiya markii go'aan qaadanayaan hore kama degdegaan balse marka ay go'aankaasi qaataan waxay samaystaan dadkani saaxiibo aad iyo aad ugu dhow ama la shaqeeyo oo mar walba isku haleyn karaan daawaday hay'e dhanka minuska markaan ka fiirino dadkani waa dad aad iyo aad u faan badan qofka inuu dhinac u seexdo labadiisa lugoodna soo laabo qaabkani waa qaabka gabi ahaanba aan isdhihi karo qaabka ugu caansan dunida daafaheedana loogu seexdo badanaa isdhihi karo 40% dadweynaha adduunka ayaa ugu seexda qaabkani hay'e qaabkani waxaa aad iyo aad ugu seexda dumarka hay'e dadkani wada ugu macnayaa dad gudaha ka nugul balse dibiyada mise kor mise markaad qaab ahaantiisa kor aad ka qoolaansato uu yahay qof aad iyo aad u adag macangag ee isdhihi kartid maba loo gali karaba iyo weyn ayuu wataa qof aad isdhihi kartid waa fahmi kartaa fila hay'e qaabka kale aan u gudubna dadka caloosha mise beerka u seexdo qaabkani waxa u seexdo badanaa ragga hay'e dumarka halka ay ka jecel yihiin inay xabad ugu seexdaan marka uu qofka caloosha u seexdo hay'e gacmahana dhinacyaha dhigo waxa ay taasi qasab ku noqotaa inuu qofka gabi ahaanba dhabarkiisa qolocsamo culays badanna uu ku yimaado qofka laf dhabartiisa sidoo kale u seexashada qaabkani waxa ay dhaawac ku sababi kartaa qofka qoortiisa shakhsi ahaan markaanu ka hadalna dadka caloosha mise beerka u seexdo dad soo jiiso leh maskaxdoodana aad iyo aad u furfuran hay'e waxaa aad iyo aad loogu macnayaa dad hoggaanka ku fiican hay'e qaabkani markaan u gudubno kale dadka madaxooda kor haadiyo mise cidhka dhabarkooda toosiya lugahooda toosiya gacmahoodana toosiya faa'iidada darada aad iyo aad u weyn uu leeyahay qofkani waa qof
quuradiisa xaafashinaad laga soo maqlo sababi waxaa ciriiri noqonaya cunahaaga. taasi ayaa sababi karto inaad samayso quuro dheer xaafashinaad laga soo maqlo daawade. ha yeeshee arrinta farxadda ah ayaa waxa ay tahay inaad qaabkan u seexato waxa ay aad iyo aad ugu fiican tahay jirkaaga daawade. marka laga hadlayo shakhsiyaaddiisa, qofkani dhabarka u seexdo, madaxa toosiyo, cidhka aadiyo, lugahiisa toosiyo, gacmihiisana toosiyo, waxaana lagu macnayaa in ay yihiin dad aad iyo aad u xoogan, aamus badan, nidaamsan, isla markaana aanu jeclaynin buuqa badan. waana dad jecel inay waqtigooda badanay kelinimo ku qaataan. qofka inuu dhinac u seexdaa, labadiisa cagoodna toosiyaa, ha yeeshee labadiisna gacmoodna toosiya, dhinacyadiisana dhiga, waa qaabka labaad ee loo seexdo 15% saad u diidid daafaha adduunka oo dhan. qaabkani oo qofka dhinac u seexanayo isaga uu labadiisa cagood iyo labadiisaba gacmood toosinaya, waxa uu gabi ahaanba ugu fiican yahay qoorta iyo dhabarka. sidoo kale u seexashada qaabkani waxa ay dhisaa qoorida, waxayna aad iyo aad hoos ugu dhigtaa hurdo la'aanta. waa dad qof kasta oo bulshada ka mid ah la saaxiibi karo. waxaa lagu macneeyaa in ay yihiin dad isku kalsoon oo karti iyo hadal aqaani leh, balse kaliya hal cilad ayay leeyihiin dadka qaabkani u seexda daawade: in ay yihiin dad aad iyo aad u aamina dadka kale. waa dad si fudud gebi ahaanba wax loogu qancin karo. taasini waxa ay sababtaa inay dadka qaar kaga faa'iidaystaan laguna qayaamo. dadka sida tan aad hadda u jeedid inta dhabar u seexdo, labada gacana kala taago, labada lugana kala taago, waa dad oo yar. sidoo kale u seexashada qaabkani waxa uu u fiican yahay dhabarkaaga, qoortaada, balse saan ka soo hadalnay qodobkii hore aad soo dhaafeenay, waa qofkan la siman aad iyo aad u quro badan. waxaa lagu macnayaa dadkani in dad si heer sare ah u fikirayna yihiin. waa dad gebi ahaanba saaxiibtinimada ku fiican oo bulshaawi ah. ha yeeshee waa dad aad iyo aad u taageero dadka ay daneeyaan. waa dad wax dhageysta marka ay xaaladdu u fiican tahay mise marka ay xaaladdu ku xun tahay daawade. ha yeeshee waana dad aad iyo aad daacad ugu ah xiriirka ay sameeyaan. gebi ahaanba markii laga soo tago shakhsi dadka qaababka kala duwan u seexdo, sida hadda aad u jeedid 12 qaab oo islahayn ayuu u seexdaa qofkani. 50% waxaa la sheegay in saqda dhexe habeenkii, inkastoo ay u fiican tahay qaababka kala duwan oo qofkani u seexanayo qofka jirkiisa iyo cadaadiska muruqihiisa ku dhacayo inay hoos ugu dhinto, haddana u seexashada aad u seexanaysid qaababkani kala duwan waxa ay aad iyo aad hoos ugu dhigi doontaa hurdadaada daawade. ha yeeshee badanaa dadkani waxa ay kacaan saqda dhexe ee habeenka. ha yeeshee anigaba aan ka mid ahay daawade. hurdadoodana si fiican oo fresh uguma bogtaan. shakhsiyaadkooda iyo qaabka uu ka turjumo markan ka hadlayno daawade, inay leeyihiin dadkani dabeecada kala duwan. mararka qaar waa dad xanaaqooda aad iyo aad ugu dhow yahay, isla markaana go'aan aan lahayn. marmarka qaarna waa dad dhaqankooda iyo qaabka ay bulshada iyo bii'ada uu ku nool yahay si fiican nidaam ula dhaqmo. ha yeeshee qofkani gebi ahaanba meelaad u raacdid maba lahaanbo. fideogan inaan ku dheeraado ma jecli, durbaba ha yaraatee wax unbaad ka fahantaan filayaa. waad ku mahadsantihiin dhammaan taageerayaasha Walaalaha Media. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkayga daawateen. waa anigu waxaana dirgashaan u idin leh caafimaadkaaga ka faa'iideyso kadibna khayr badan. bye bye.